waxaa la yidhaahdaa bara allahu 4 ب4 afar baa ilaahay ku beri yeelay bara yuusuf bilisaani shaahid nabi yuusuf ilaahay baa beri yeelayo bilisaani shaahidi wahuwa diflu saqiir canugii yaraaye weli hadalka aan gaarin ee dharabta ku jiray yaa ilaahay ku beri yeelayo canugii baa hadlay oo muxuu yidhi qamiisku haddii uu horay ka jeexan yahay gabadha ayadaa run sheegaysa nabi yuusufna been buu sheegaya hadduu qamiisku gadaal ka jeexan yahay been bay sheegaysaa iyadu nabi yuusuf baa run sheegayo sidii unbay noqotay marka qamiiskuna gadaal ayuu ka jeexan yahay marka bara allahu yuusuf bilisaani shaahidi wahuwa diflu sagiir wey وبرأ الله موسى بالحجر نبي الله موسى nimankii yahuud la dhihi jiray qoomkiisa haye loo diray way dhibeen nabi yuusuf nabi muuse waxay ahaayeen dabeecad xun bay lahaayeenoo in raggoodu intay meel isugu yimaadaan dharka ay wada dhigtaan oo iyagoo qaaqaawanay meel ku wada qabaystaan oo meeshaas ayay markaa dabeecadaasay samayn jireen nabi muuse marka arrintaa wuu diiday waa xumaan buu yidhi in maaragtay cawradaada yani bini aadanka aada u banayso oo yani hal meel aad yani lagu wada qabaysto arrintaas wax ilaahay raalli ka yahay ma aha marka meel gaara ayuu tegi jiray meel gaara ayuu ku qabaysan jiray markay halkaas yani ayuu samaynayaan meelaha isugu imaanayaan wuu diidi jiray markaasi waxay yidhaahdeen waxa uu meel cidloo gaara u tegayo isu qarinayo sheeluu qabaa muuse sheeluu qabaa wuxuu isu qarinayo waxaa dhacday marka nabi muuse inuu tegay meel gaara sidii caadadaba u ahayd wuu qabaystay dharkii inuu qabaystuu doonayo dharkiisibuu intuu furay buu dhagax sidaa u kor saartay markaasuu qabaystay biyihii buu galay wuu qabaystay markuu qabayskiisii dhammaystay ee uu soo baxay ee uu doonayay inuu dharkiisi qaato dhagixii ayaa dharkii la carabay nabi muusena wuu ka daba orday thawbi xajar sida xadiidka bukhaariga kusoo aroortay thawbi alxajar war dhagax yahow maradayda isii war dharkayga isii si usii ordayay jamaaco badan oo reer bani israa'iila oo raggahoo meel isugu yimid oo meel jooga ayuu dhagixii dhex istaagay isagoo maryihii wado kulligood oo dhan way fiiriyeen nabi muuse si fiican bay u fiiriyeen inuuna wax sheela qabin inuuna wax cudura qabin way arkeen markaasuu dharkiisii ka qaatay markuu dharkii xirtay ushiisii uu wadan jiray dhagixii buu markaa garaacayoo 3 jeer ayuu dhagixii ku dhuftay markaa nin xanaaq kulul oo aada u adag ayuu ahaa nabiyullaahi muuse wuxuu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ulihii uu ku dhuftay dhagaxa way ka muuqanaysaa diilamihiisa yani calaamad bay ku noqotay wey marka ilaahay wuu beri yeelayo bilxajari dhagaxaasaa ilaahay ku beri yeelay nabi muuse dhagaxaa dharkiisii la cararay ilaa ay reer binu israa'iil arkaan inuuna wax dhiba qabin wey marka ilaahay qur-aanka ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaladiina aadaw muusa dadka mu'miniinta ahow ha noqonina kuwii nabi muuse dhibay oo kale fabara'ahu allahu mima qaaluu waxa ay sheegayeen ay nabi muuse ku sheegayeen ilaahay baa ka baryeelay wa kaana cinda allahi wajihan ilaahay agtiisa wuxuu ku lahaa sharaf iyo magac iyo darajo ku lahaa nabi muuse wey marka nabiyullaahi muuse ilaahay dhagaxaasa yuu ilaahay ku baryeelay wa bara'a maryamo bintu cimraan nabi ciise hooyadii ilaahay wuxuu ku baryeelay biindaaqi waladiha canugeedii baa ilaahay ka hadashay maryamo bintu cimraan ayadoo yani sidii loo ogaa ayadoo yar weyda yarayd wax yar unbay markaas ay soo kortay qof wanaagsan oo markay yarayd ba cajiib ahaydo dee hooyadeed masaajidkay u nadartay masaajidka ayaa yani masaajidka dhexdiisa unbay kusoo kortay nebi zakariye oo habaryarteed qabay ayaa mas-uul ka ahaa qisooyin badan iyo cajaa'ib badan iyo karaamaad buu ku arkay markay yarayd oo cajiiba markay weynaatay sidii loo ogaa iyadoo wanaagsan oo saalixo ahoo masaajidka un joogto maalinkii dambeba iyadoo wiil wadato ayay timid cajiib bay ku noqotay markaa dadkii markaa cajiib bay ku noqotay waxaa lagu yidhi markaa yaa ukhta haaruun maa kaana abuuki imra'a saw-in
wamaa kaanat ummuki bagiya, maxaa kugu dhacay? aabbahaa nin xun ma ahayn, hooyadaana baqiyad ma ahayn, mid gogol dhaaf iyo zina samaysa ma ahayn. maxay tahay canugan? ninkugumaana ogeyn, canugan aada wadato maxay tahay? markaa waxay tihi asaga la hadla. fa ashaarat ilayhi, asagay u ishaartay oo waxay leedahay asaga weydiiyaba. qaaluu kayfa nukallimu man kana fi lmahdi sabiya, sidee baan oola hadlaynaa canug yar oo hadda dhashay oo dherabta ku jiro dhabarka lagu wado, sidee baan oola hadlaynaa? qaala inii cabdullah, asagii baa hadlay. markaa nabi ciise wuu hadlay. inii cabdullah aataaniya alkitaab wajacalanii nabiyan wajacalanii mubaarakan aynamaa kuntu waawsaanii bisalaati wazakaati maa dumtu xaya wabaran biwaalidi. aayaadkaasaa ilaahay kaga warramay fi suurati maryam. marka maryamo bintu cimraan ilaahay baa beri yeelay. maxaa ilaahay ku beri yeelay? biindaaqi waladiha, canugeedii baa ilaahay ka hadashay. waa nabi ciise asagoo yar buu hadlay wey. wabara'a caaishata biaayaatin min alqur'aan, ummuna caaisha ilaahay baa beri yeelay aayada qur'aanka kamida ilaahay ku beri yeelay. waxyi baa ilaahay ku beri yeelay. ummuna caaisha ifki baa lagu sameeyey. ifki waa kii yani xadiidkii dheeraaye xadiisu ifki qisadiisa yani bukhaari iyo keyrkiiba ay warinayaan. rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu safrayo dabeecadiisa maxaa ahayd? dumarkiisa intuu u qori rido, midda qorigeeda soo baxayo yuu wadan jiray. marka ummuna caaisha ayaa qorigeeda soo baxay, safar bay la gashay. safarkii markii laga soo laabtay meel baa la degay. wakti aroortia intuu waagu baryin baa in la safro, in la guuro ayuu rasuulku ku amray. ciidankii markii hala guuro la yidhi, banaanka ayay u baxday caaisho, qadaa xaajay doonaysay. marka kuul ay wadatay oo walaasheed asma ay kasoo qaadatay baa ka dhuntay. kuushii intay raadinaysay ayaa safarkii ka tegey. safarkii oo tegay bay meesha kusoo laabatay, xaafadii kusoo laabatay. marka safarkii markuu ka tegey, nin saxaabada kamid a safarkaa la socon jira, dabeecadiisa waxay ahayd markii safarku habeen guuro yani uu ka dambayn jiray. waagu markuu beriyu soo kici jiray, wixii dhumay oo dhan buu soo qaadi jiray. haddii safarku maalin guuro wuu ka dambayn jiray. markii la tago kadib wixii laga tagay oo wixii dhum oo dhan buu soo qaadaya. markaasuu wuxuu arkay qofkan meesha jiifo, hadduu fiiriyeyna waa umulmu'miniin qabla alxijaab buu yaqaanay. wuu soo qaaday safwan bin mucadal ninkii la oran jiray. markaa safarkii buu ka daba keenay gaadiidkiisii iyo raftigiisii intuu fariisiyey oo uu kusoo qaaday ayuu umulmu'miniin yani iyadoo meel la degay rasuulka calayhi salatu iyo saxaabadii ayuu ka daba keenay. marka ifkii wax la yidhahdaa bilowday. mar alle markii madiine lagu dhoqday, munaafiqiintii baa waxay bilaabeen yani safwan iyo caaisha way isla hareen oo way is ogaayeen. ifkigaas oo dhibaato badan keenay, muddo badan socday yani muddana rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyigii uu ka daahay oo marka ummuna caaisha dhibaato badan ay la kulantay. rasuulkuna uu aad oola kurbooday. markii dambena aayado qur-aanka kamid a fi suurati nuur yaa markaa ilaahay ku beri yeelay subxaanahu watacaala. biaayaatin min alqur'aan la akrinayo ilaa qiyaami saaca ayaa sha'nigeeda kusoo degay oo ilaahay ku beri yeelay ummuna caaisha radia allahu canha. marka afartaasaa ilaahay ku beri yeelay ayaa la yidhahdaa wey. marka mixnadii labaad ay qabsatay nabiyullahi yuusuf ee qisadiisa ay ka warramaysay waxay ahayd mixnadaas yani asaga iyo imra'atulcaziiz dhex martay ee uu kala kulmay. taana ilaahay baa subxaanahu watacaala ka badbaadiyey oo beri yeelay. wuxuuna ku beri yeelay canugii yaraa oo aan hadalka gaarin inuu hadlay. arrintii markay dhacday wuu ogaaday ninkii guriga lahaa inay iyadu ay arrinta wadatay. laakiin arrintii khabarkii ayaa magaalada gaaray. dadkii oo dhan baa waxay ku ceebeeyeen, dumarkii oo dhan ayaa markaa waxay ku ceebeeyeen imra'atulcaziiz zulaykha waa la ceebeeyey. oo waxaa la yidhi wiilka yaraayo gurigeeda joogay ayay markaa damacday, waa ceebowday gabadhii dhamayd oo ninka madaxda u qabay. arrintaa markay dhacday, martiqaad bay samaysay. gabdhihii yani dumarka intii yani waxgalkahay oo dhan ee waaweynaa qisada iyo arrintu ay gaartay hadalka faafinaya ayay u yeertay. martiqaad bay u samaysay. mid la arkana qudaartii iyo wixii ay u diyaarisay midi ayay u saartay. marka
nabi yuusufna waxay ku tiri marka hortooda guriga horti dhexdiisa sidaa uga yani dee wuu khidmaynayo gurigii buu dhex marmarayay marka gabdhihii dumarkii meesha isugu yimid markay arkeen nabiyullaahi yuusuf quruxdiisii bay ku fidnoobeen quruxdiisii ayay ku fidnoobeen intay asagii dhowrayeen ayay gacmaha isjarjareen mid walbaba qudaartii iyo wixii hilibkii iyo wixii hor yaallay moodaysaa inay toosanaysaa markaasay gacmaha isjarjarayaan sida qur-aanku nooga warramay maxaa ilaahay leeyahay waqaala niswatun fi lmadinati imra'atu lcaziizi turaawidu fataaha can nafsih qad shagafahaa xubban inaa lanaraaha fi dalaalin mubiin gabadhii imra'atulcaziiz ahayd waxay doontay wiilkeedii yaraa wiilkii bay jeclaatay way dhunsan tahay waa qof aad u khaldan bay yidhahdeen markay arrinta ay ku ceebeeyeen falamaa samicat bimakrihinna arsalat ilayhinna wa actadad lahuna muttaka'an wa aatat kula waaxidatin minhuna sakiinan martiqaad bay u samaysay fadhi wanaagsan bay u samaysay mid la arkaba yani wixii ay u talagashay qudraddii iyo hilibkii iyo wixii ay u diyaarisay midi bay u dul saartay markaas inay yani ku jarjartaan oo ay ku cunaan wa qaalat ikhruj calayhin nabi yuusufna waxay ku tiri yani bal yani u tago hortooda marmar oo yani wixii waxay u baahdaan oo dhan buu u keenaya markaa dee gurigii buu markaa ka khidmaynaya falamaa ra'aynahu akbarna markay arkeen way weyneeyeen nabi yuusuf waqadacna aydiyahunna gacmihii bayba isgoogooyeen waqulna xaasha lilahi ma hada bashara bini aadamba maahay yidhahdeen waxan in hada ilaa malakun kariim waa malag mooyaane wax kale maaha in hada ma hada ma ahaanin ilaa malakun kariim waa malag bay yidhahdeen quruxdiisii bay ku fidnoobeen qaalat fadalikuna aladii lumtunanii fiih dee waxaad igu dagaalayseen soo taa maaha adinku adinka i dagaalaye oo way khaldantaa ay lahaayeen maxaad gacmaha isu jarjarteen hadda way marka wixii aad igu dagaalayseen waa kaa marka waxay noqotay marka in loo cudur daaro imra'atulcaziiz oo ninka kan yani nabi yuusuf qofkii arkaba dee uu ku fidnoobayo walaqad raawatuhu can nafsihi sidaa adinkuba aad u jeclaateen hadda aad ugu fidnowdeen yani waan rabaabay tiri waan doonaya waan jeclahay fastacsama wuu diiday walain lam yafcal ma aamaruhu layusjanana walayakuna min asaakiriin waxaan ka codsanayo on ka dalbaya hadduu yeeli waayo xabsi baan ku ridayaa arrintii markay sii socotay oo ay joogi weyday marka waxay noqotay nabiyullaahi yuusuf in la xiro sababta loo xirina waxa weeye ilaahay baa beri yeelay oo inuu asaga beri yahay waa la ogaaday way caddaatay laakiin ninkii guriga lahaa ee casiizu misr ahaa ee xaaskiisii maadaama qof weyne uu qabay arrintiina ay magaalada gashay wixiina uu sii noqnoqonayo bal in arrintaa lagu joojiyo xoogaa iyadana sumcaddeeda lagu ilaaliyo sidaa darteed baa waxay ku tashadeen markaa in nabi yuusuf la xidho nabi yuusuf xabsiguu markaa galay waa la xidhay muddo ayuu xabsiga ku jiray xabsigana waa mixnadii saddexaad ee qabsatay yani qisadiisa ama yani waxyaalihii uu kala kulmay ahayd waa inuu xabsi galaba ahay muddo dheer ayuu xabsi ku jiray ilaa 7 sano iyo ilaa mudday sheegaan ayuu xabsi ku jiray xabsigii ayuu dacwadii iyo diintii islaamka kusii fidinaya un dadkii xabsiga joogay oo dhan baa aada u jeclaaday cibaadadiisa iyo wanaagiisa iyo waxa uu dadka khayrka uu u sheegayo waxaa markaa xabsigii soo galay oo lasoo xiray 2 wiil oo boqorka shaqaalo u ahaa oo midna kuwa raashinka kariyo kamiyuu madax u ahaa midna kuwa yani sharaabka iyo yani cabitaanka qaybta cabitaanku markaa yuu madax u ahaa labadoodaba meligii ninkii boqorka wuu tuhmay wuxuu ku tuhmay inay doonayaan inay dilaan oo sun intay ugu daraan cuntada iyo sharaabka ay doonayaan labadoodiiba markaa wuu xiray labadoodii xabsigii ku jiray markay nabi yuusuf barteen wanaagiisa iyo salaaxiisii ru'yo ayay arkeen waxay u yimaadeen marka inuu ru'yadii u fasiro waxay ku riyoodeen kii yani sharaabka iyo waxaan yani madaxda u ahaa ee ka shaqayn jiray meliga u qaabilsanaa wuxuu arkay asagoo intuu sharaab miiray waraabinayo ninkii boqorkii waraabinayo sidii de awalba uu hawsha u hayn jiray kii kalena wuxuu arkay isagoo intuu kibis cunto yani kibis sameeye madaxa sidaa madaxiisa ay saaran tahay ay shimbiro ay cunayaan
noo fasir bay yidhaahdeen qisadan cajiibka ru'yadan aan aragnay marka wuu u fasiray adigu waad bixi doontaa oo xabsiga waad ka bixi doontaa waad nabadgeli doontaa wuu ku yidhi waa midka yacni saaqiga ahaa ee wax waraabin jiray kii kale ee dacaamka iyo waxaan yacni mas-uulka ka ahaa ee arkay iyadoo madaxiisa kibis yacni saaran buufo madaxiisa dul saaran ee shimbir ay cunayso adigu wuxuu yidhi waa lagu dilayaa waad dhimanaysaa sidii unbay noqotay marka ninkii waa la dilay kii kaleetana marka wuu baxay oo xabsigii buu ka baxay kii xabsiga ka baxay buu markaa nebi yuusuf wuxuu ku yidhi u sheeg ninka boqorka ah yacni xaalkaygu wuxuu yahay iyo meesha aan ku jiro u sheeg marka markuu baxay wuu iska hilmaamay waxaa dhacday marka qisa boqorkii inuu ru'yo arkay ru'yuu arkay boqorkii ru'yaduu arkay waxa weeye wuxuu arkay 7 lo ah oo yacni cijaafa macnaa caato oo weyd ah oo 7 yacni iyo 7 kaloo yacni aad u cayiloon oo burburan oo ay yacni kuwan hilibka le buuran ay cunayaan kuwan caatada ay cunayaan 7 sacaad oo aad u ladan oo hilib badan ayuu arkay 7 kale oo weyd oo caataa u imaadeen way cunayaan dadkii buu isugu yeeray yacni boqorku ru'yada iyo waxaan cilmigeeda yaqaanee wax fasiri jiray wuxuu yidhi waxaan arkay ru'yadaasaan arkay ee ii fasira waxay ku yidhaahdeen waxaas waa yacni waa iska dhadhab aad ku dhadhabtay way axlaam weeye wax macno leh ma aha waxba ha ka soo qaadin anagu agtaanada wax saas qiimo oga weyn leh ma aha ma aysan garanin markay ayagu waxba fasiri waayeen ninkii xabsiga ku jiray baa soo xusuustay markaa nebi yuusuf ayuu soo xusuustay wuxuu yidhi aniga idira waxaan anaa idiin fasiraya ru'yadan dhabteeda idiin keenaye nebi yuusuf buu u yimid ru'yadii markaa nebi yuusuf wuu u fasiray wuxuu yidhi 7 sano oo abaara yacni 7 sano barwaaqaha dhici doonto 7 sano abaarana ka dambayn doonto markaa 7 sano ee barwaaqada ah wixii baxo markaad beerataan raashinka iyo zarciga iyo waxaad samaysaan kaydsada 7 sano abaartaa markaa looga bixi doonaayo haddaan la kaydsanin oo sidaa la samaysanin dhib baa imaan doono waa lagu halaagsamaya gaajadaas markaa kadibna sanad barwaaqaa oo wanaagsan ayaa imaan doono marka sidii ayay noqotay markaa ninkii boqorka ahaa marka qisadii markuu sideedii u arkay wuxuu markaa codsaday nabi yuusuf in xabsiga uu ka soo baxo hala ii keena buu yidhi ninkaas dadkayga khaaska ayaan ku darayaa laakiin markii loo yimi nabiyullaahi yuusuf ma uusa iska bixin maya wuxuu yidhi ma baxaye ee horta waxaad weydiisaan gabdhi yacni islaamihii gacmaha isgoogoynayey iyo kuwii yacni sheegayay macnaha yacni tii igu dacweynaysay inaan anigu aan xumaanta doonaya wax sameeyey bal hala weydiiyo waxa arrimahaas oo dhan u samaynayeen dumarkii ayaa markaa loo yeeray waxay ka markhaati kaceen markaa dumarkii inayna markaa waxba nebi yuusuf aysan ku ogeyn oo nebi yuusuf uu beri yahay ayay markaa ka markhaati kaceen wey markay dumarkii ka markhaati kaceen inuu nebi yuusuf uu yacni nin beriga uu yahay oo annagu un aan maaragtay hawshan annagu aan asaga aan la doonnay oo asaga aan jecel aan jeclaanay iyo fidnoobid aan ku fidnoownin un aan arrinta u samaynay markaasay imra'atulcaziizna marka ayay runtii sheegtay wey oo markii la weydiiyey gabdhihii waxay yidhahen qaala maa khadbukunna id raawatunna yuusuf can nafsih maxay ahayd xaalkiinu markaad nebi yuusuf doonayseen arrintiinu maxay ahayd qulna xaasha lilah maa calimnaa calayhi min suu wax xumaana kuma ogin annaga unbaa jeclaanay annagaa ku fidnownay saasay yidhaahdeen markaasay imra'atulcaziizna markaasay runtii sheegtay qaalat imra'atulcaziiz al'aana xasxasa alxaq hadda ayuu xaqi caddaaday ana raawatuhu can nafsih aniga ayaa doonay wa inahu la min asaadiqiin dadka runta sheegayo ee runta badan ayuu ka mid yahay wax xumaana asagu ma samaynin waxan aniga unbaa ka dambeeyey aniga ayaa doonay markaasay markaa runtii caddaysay nabi yuusuf markaa xabsigiibuu markaa ka soo baxay boqorkiina wuxuu u dhiibay khazaa'intii ayuu u dhiibay oo inuu maamulo yacni bangiyadii iyo dhinaca dhaqaalahoo dhan inuu masar u maamulo ayuu markaa u dhiibay
markii dambena melig buu noqday asagii baaba boqor ka noqday meeshii oo mulkigiiba lagu wareejiyey waxa u yimid markaa asagoo boqora waxa u yimid walaalihii oo dhulkii intuu abaar ka dhacay yaa u yimid wuu garanayaa markaa laana ilaahay baa subxaanahu watacaala horay ugu sheegay markii godka lagu ridayey dhibaatada waad ka bixi doontaa wayna kuu imaan doonaan adigu garanayo laakiin ayagu aysan ku garanaynin wuu u yimid wuu soo u imaadeen si fiican buu usoo dhaweeyey gaadiidka ay wateen oo dhan ayuu markaa raashin uga buuxiyey si fiicanna wuu u dhaqaaleeyey wuxuuna ku yidhi ninka walaalkiina nin kaleo walaalkiina ma jira nin kaleo walaalkeena ha jiro oo nala dhashay soo wada ayuu yidhi iina imaada mar kale ii imaada waan idin dhaqaalaynayaa si fiicanna waa idiin wanaajinayaa marka weliba ayagoon ogeyn yay wixii ay wax ku gadanayeen ay raashinka ku bedelanayeen lacagtii ama wixii ay wateen oo wax kusoo doonayeen inay ku shaharsadaan ay wax kusoo gataan ayuu raashinkoodii iyo gaadiidkoodii u dhexgeliyey waxba kamuuna qaadanin markay laabteenna yacni oy aabahood u tageen nabi yacquub waxay yidhaahdeen waxaan doonaynaa inaad nagu darto binyaamiin nagu darto boqorkaasaan u tagnay si fiican buu noo soo dhaqaaleeyey wuxuu yidhi walaalkiin haddaad soo wadaan sidaas si ka fiican baan idiin sii dhaqaalaynaya waan idin wanaajinaya nabi yacquub marka wuxuu yidhi sidee baan idinkugu aaminayaa walaalkiis baan shalay idiin aaminay yuusuf ood yacni aad saad ogeed samayseen ma asagaan idinku aaminayaa mar kale maya ma dhacayso waxay wadaanba ballan ayuu ka qaaday markii labaadna dee waatay yacni uu kusoo daray yimaadeen nabi yuusuf bay u yimaadeen markay u yimaadeen wuxuu sameeyey markaa ka shaqeeyey xeeladii uu kaga reebi lahaa markaa ninka walaalkiisa oo binyaamina sidii uu uga reebi lahaa marka wuu u sheegay asaga walaalka yuusuf baan ahay waxba dhibaato ah yacni isgelinin waxaan doonayaa inaan ku reebo saasuu asaga u ogeysiiyey markii uu raashinkii wax walba u diyaariyey gaadiidkoodii loo raray ayuu markaa alaab uu boqorku lahaa oo yacni qalab yacni wax lagu beega wax lagu cabira wax lagu beega ayuu markaa yacni binyamin nabi yuusuf wuxuu geliyey hala geliyo uu yidhi shaqaalihiisa ku amray in binyamin ritigiisii la geliyo ragkiisii baa la saaray lagu daray marka markii ay diyaar garoobeen oo inay baxaan ay doonayeen ayaa lala hadlo waxaa la yidhi alaab baan weynay waxbaan la'nahay dad yacni waxaa tihiin yacni dad yacni waxadayo waxbaad xadeen alaab baa lala'yahay saasay markaa lagu yidhi waxay yidhahdeen anagu qoom wax fasahaadiye ma nihin dad wax hada ma nihin maxaa dhacay maxaad la'dihiin maxaa maqan walamaa jahadahum bijahaazihim jacala siqaayata fi raxli akhi siqaayada waa waxa yani wax lagu cabiro wax lagu beego way uma adana muadinun ayatuha alciiru inakum lasaariquun waa safar yahow niman waxaa tihiin yani tuugaaba tihiin alaab baa lala'yahay waan idin wanaajinay si fiican baan idin qaabilnay haddana ma waxaad keenteen inaad maaragtay qaaluu waxay yidhahdeen waaqbaluu calayhi maada tafqiduun way soo qaabileen waxay yidhahdeen ma maxaad la'dihiin waxaan la'nahaa la yidhi suwaaca almelik waliman jaa bihi ximlu baciir wa ana bihi zaciim yani suwaac iyo siqaayo waa isku mid weye marka alaabtaasaan la'nahay qofkii keenana dee gaadiid baan u ballan qaadaynaa yaanu siinaynaa marka waxay yidhaahdeen markaa de awlaadu lambiyaa bay ahaayeen qaaluu tallahi laqad calimtu ma ji'naa linufsida fi lardi wama kunna saariqiin annagu ma anagu imaanin fasaad dad tuuga anoo waxadana ma nihin marka arrintaa waxaa la yidhi way idinku maqan tahay qofkii laga helo gaadiidkiisa laga helo maxau noqonayaa abaalmarintiisu qofkaasaa la reebayaa bay yidhahdeen xukunka iyo sharcigeennu waxa weeye qofkii asagoo wax qaado asagaa la reebi kaasaa yani la xabisaya la reebaya waa la baaray markaa gaadiidkoodii baa la baaray wuxuu ugu gadaalmariyey baa la yidhi nabi yuusuf oo uu ku amray in loogu gadaalmariyo walaalkii ritigiisii intii kale o dhan markii lasoo baaray ritigii walaalkii baa laga helay asagii buu markaa la haray siduu ku hadhuu doonayey markaasay yidhaahdeen shalay baan walaalkii yuusuf god ku ridnay maantana haddaan nidhaano wiilkii kale waa lala haray oo boqorkii baa la haray aabaheen yacquub dee dhibaataan kala kulmayna seen ugu tegi karnaa ugu sheegi karnaa ninkii u weynaa marka wuxuu yidhi nabi yuusuf bay u yimaadeen waxay yidhahdeen boqor yow nin wanaagsan baa tahay aad baad noo wanaajisay
waxaan kaa codsanaynaa ninkan yani oday aad u jecel ayaa dhalay annagan waaweyn mid ka mid a nala haro asaga sii daa asaga daa anaa kuu haraya anaa dadka u weyn aniga i reebo asaga iska daa maya buu yidhi taas waa cadaalad darro dulmi bay noqonaysaa qof aan dembi gelin inaan la harno ma dhacayso markay si walba isku dayeen oy ka noogeen waxay marka uu yidhi ninkii u weynaa anigu meeshaa kama dhaqaaqaye halkanaan iska joogaya waan harayaa u taga yani aabahee nebi yacquub u taga una warraba say wax u dhaceen wiilku waxbuu xaday annagu waxa qeybkoo soo socdana ma ogin yani waa wax uun asaga ka dhacay annagu waxaan samaynay ma jiro ilaahay baana ogan waxa dhici doono marka u sheegay yidhahdeen nabi sidii bay arrinta u dhacday oo haddaad annagana aaminayna xataa qaryadii iyo magaaladii dadkeedii warayso waxa aan kuu sheegayna waa run marka nabi yacquub markay u yimaadeen yani wiilashiisii oo socdo oy arrintii uga warrameen dee murugtii unbaa kusii kacday watawallaa canhum waqaala yaa asafa calaa yuusufa wabyadad caynaah min alxusni fahuwa kadiib markii uu warkoodii dhegaystay wuu ka jeestay hadalkoodii nabi yuusuf murugtii wuu soo xusuustay leanna musiibo markay dhacdo dhib markuu kugu dhaco tii kasii horreysay bay kusoo xusuusinaysaa marka naxdintii hadda wiilkiisii yaraa la qabsaday uu ka naxay iyo nebi yuusuf oo dee weli uuna ka samrin iyo labadiiba murugtii hore yuu soo xusuustay markaasuu yidhi yaa asafa calaa yuusufa wabyadad caynaa min alxusni wuu indhabeelay murug darteed fa huwa kadiib aad buu u murugaysan yahay oo mid ay murugtu ka badatay qaaluu tallahi tafta'u tadkuru yuusuf xataa takuna xardan aw takuna min alhaalikiin maba hilmaamaysa yuusuf weligaa waad sheegaysaa yani ilaa aad dhimato yuusuf waad u sheegaysaa soo ma saasay markaa yidhahdeen qaala inamaa ashkuu basii waxuznii ila allah waaclamu min allahi ma laa taclamuun ya bani yadhabuu fataxasasuu min yuusufa waakhiih walaa tay'asuu min rawxi illah wiilashaydii oo taga baxa yuusuf iyo walaalkiiba raadiya yani ilaahay naxariistiisa ha ka quursanina ilaahay subxaanahu watacaala naxariistiisa lagama quuso waxay markaa noqotay nabi yani inay u yimaadeen yani nabi yuusuf walaalihii qoladii kalea way soo noqdeen mar labaad yani waxay uga warrameen in yani dhibaato badan iyo abaar aad u dhibaato badan lagu jiro oo baahi badan ay hayso ayay markaa uga warrameen qalbigiisiba markaa jilcay maadaama aabihii iyo hooyadiiba halka uu kaga soo tegay marka qalbigiisibaa jilcay wuxuu yidhi ma garanaysaan markaasuu isu sheegay ma garanaysaan waxaad yuusuf ku samayseen markaasay garteen markaa oo adigu ma yuusuf baa tahay ha yuusuf baan ahay buu yidhi kana waa walaalkay oo waxaan idinkaga reebay dee waa walaalkay marka qofkii sabrana dee ilaahay wuu wanaajinayaayo wax wanaagsan buu ilaahay ku abaalmarinaya subxaanahu watacaala markaasay yidhaahdeen ilaahay wuu ku doortay laqad aasaraka allahu calayna ilaahay baan yani ku doortay adiga yani wixii aan kugu samayno o dhib ana yani ilaahay baa kaa kaafiyey subxaanahu watacaala dadka sabrana ilaahay baa abaal mariyo adigu iska sabar bay yidhaahdeen markaasuu wuxuu ku yidhi laa tasriiba calaykum qaala laa tasriiba calaykum alyawm yakfir allahu lakum wahuwa arxamu araaximiin nabiyullaahi yuusuf wuxuu ku yidhi yani wax dhibaataa canaana maanta korkiina ma aha arrintii aad samayseen wax idin raacanaya ma jiro allah idin dambi dhaafo ilaahay waa subxaanahu watacaala arxamu araaximiin weye nuqda ehelkaygii oo dhan ii keena aabbahay iyo ehelkaygii oo dhan iyo hooyaday keena hooyadiis markaa way dhimatay baa la yidhi habriirtiis baa markaa noolayd markaa kulligood ayay yimaadeen qamiiskaygana qaada aabbahay u geeya araggiisi iyo indhihiisu waa usoo noqonayaan sidii unbay noqotay markii uu nabi yacquub qamiiskii loo keenay yuusuf ee uu sidaa yani wejiga u saartay araggiisi baa soo noqday dhammaantoodna way yimaadeen nabi yuusuf bay markaa u yimaadeen wuu soo dhoweeyey way u sujuudeen markaa waa sujuudu taxiyatin wa tacdiim waa weyneyn iyo salaamid oo sharcigoodu waxay ahayd in maaragtay marka qofka la salaamayo weyn loo sujuudo wey falama dakaluu calaa yuusufa aawaa ilayhi abaweyh waqaala adkhuluu misra in shaa allahu aaminiin warafaca abaweyhi cala alcarsh wakharuu lahu sujada baa ilaahay leeya wuu soo dhoweeyey labadiisi waalid ayuu markaa ku fariisiyey meel sare kursigiibuu ku fariisiyey sujuud bay markaa ugu hoobteen way salaameen weye marka
رؤيدي او اركي مركا نبي الله يوسف وهالله وحو يري يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا والرؤيدي أن أركي مركان يرى أن أركي إلهي دبو كدغي سبحانه وتعالى وقد أحسن ربي مثواي إلهي وقد أحسن بي إلهي بوناك إيسمي إذ أخرجني من السجن وجاءكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي أنو إلهي حبسبو إذا صاري أذين كان إلهي ميجي يدور كبا إلهي إذن ككياني مركي أو شيطانكي ويعني يا ولا الله يقول نكلجي يعني سقلا وناسبه يعني يقول أديك سني نبي الله يوسف ده أولاد الأنبياء بيهاين ضد يعني أكرمه يهاين وإلهي كرامي يعني وحبه أمر عنن ولا الله يديم كابا يقول سمي موسى أرني محيس لا إيه لأن موسى أرني أنا إيه ولا الله شيطان بعد إحدى أنا في دنيا أنا كرتوري ساسو كير إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم مركا وقصة النبي الله يوسف يعني halka ayay marka inoogu dhamaatay waa qiso aad iyo aad u dheer cibro badan iyo cilmi badan ayaa ku sugan ilaahayna uu ku tilmaamay yani inay ku sugan tahay xikmado iyo cilmi baa ku sugan laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab ilahi ya ibra ku sugan dadka aqliga la ugu sugan ya ugu sugan ba ilaahay leeyahay sabarku qiimaha uu leeyahay ilaahay oo la caabudo subhanahu wa ta'ala amarkiisa oo la qaato xumaanta oo la iska ilaaliyo inaad sabarto oo ilaahay ku kalsoonaato wanaaga ay leedahay ayaan qisada ka faa'iideysanaynaa iyo cibrooyin iyo cidaad aad iyo aad u fara badan ilaahay subhanahu wa ta'ala ha nagu anfaco kuwa ku intifaacayna allah naga dhigo waa qisadii nabi yuusuf ayaanu halka yani insha Allah ta'ala ya inta noogu dhamaatay wa sallallahu wa sallam ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in